maxamed cabdi xayr maareeye wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa ka hadlay roobabkii dayrta ahaa ee ka da'ay dalka waxa uu sheegay in uu saameyn ku yeeshay roobabkaasi gobolada dalka maadaama ay jirto cabsi fatahaad. ugu horeyn waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa nimcada iyo naxariista uu ummadda Soomaaliyeed siiyay roobkan dayrta ee hadda da'aya iyo roobkii guwa ee ka horeeyay oo dalka isaguna intiisa badan si fiican uga da'ay dayrtuna hadda ay si fiican intaan ognahay gobolada dalka oo dhan uga da'day dadkuna ka baxeen iyo xooluhu dhibaatadii abaaraha iyo biyo la'aanta marka alxamdulillah ilaahay mahadiis weeye. dhinaca kale haddii roobabkaasi sii socdaan waxaa jira meelo badan oo ay jirto cabsi fatahaad ay jirto ama meelaha qaarkood ay bilaabantay in ay fataho webigu oo guryo iyo xaafado degan yahay ay biyuhu galaan oo ay kamid tahay meelaha ay ilaa hadda fatahaadu guryaha dadku ku nool yahay gaadhay magaalada Beledweyne. sidoo kale waxay cabsi ka jirtaa meelo kamida Jowhar iyo sidoo kale Awdiile iyo Baardheere iyo meelo badan oo dalka haddii roobku hadba intii ay da'aan ama ay ka da'aan dalkeena ama ay ka da'aan meelaha webiyadu ka yimaadaan ee dalka Itoobiya ayay ku xidhan tahay laakiin waxaa jirta digtooni in la galo oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee degan soonayaasha webiga areerihiisa iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee federaalka iyo dowladaha iyo hay'adaha ay walaalaha nahayna caawiyo intuba inay ogaadaan inay jirto cabsi fatahaad marka si loo sii diyaar garoobo maadaama ay hadda jeer dhici jirtay in marka dhibku dhaco ee dadku dhibaatadu gaadho muddo kadib loo gurmado iyadoo already dhibkii uu gaaray. dhinaca kale wasiir maareeye waxa uu ka codsaday hay'adaha gargaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed in ay u diyaar garoobaan in si degdeg ah ay wax ugu qabtaan haddii ay fatahaad ka dhacdo gobolada dalka. waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha nationka iyo hay'adaha kale khayriyaadka inay iyaguna caawiyo dadka Soomaaliyeed inay iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama araaro lahaa ama fatahaad lahaa dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa waxa geysta shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed waana sidaas inay shacabka Soomaaliyeed isu gurmadaan sidaas awgeed iyagana waxaanu ka codsanaynaa intaas oo dhan dowladda anigu wasiirka warfaafinta u ahay oo sidaan sheegay diyaar ah iyo maamul goboleedyada iyo hay'adaha gargaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo haysta inay u diyaar garoobaan in haddii ay roobabkaasi sii da'aan oo fatahaad dhacdo in aynu si degdeg ah oo waxtar leh ugu gudbino meelaha ay fatahaadu ka dhacdo. Mukhtaar Cabdi Aadan, telefishinka SBC, Muqdisho.